أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار إلى نهجه واكتفى. أما بعد، أخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام، waxaan rabaa inaan insha Allah taala wax yar ka warbixiyo laba qodob aniga waxba ku dheeraanayna soo koobaya insha Allah taala. qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay masjidka aanu joogno, Masjidul Hidaaya, duruusta ka socota oo masjidkaasi ka baxda habeen iyo maalinba. masjidkan sidaan ognahayba waa masjid muslimiinta intifaac badan u leh oo ku yaala meel aad iyo aad ugu munaasabsan dadkeedana haysta. haddii aan duruusta gudagalo masaajidka ka socota salaada subax bacdigeed waxaa ka socda kitaabka la yiraahdo safiinaha la yiraahdo oo loo mariyo qaybo ardooyinka ka mid ah. markii aan ka soo gudubno kitaabkaas qabla duhur, salaada duhur wax yar ka hor, waxaa ka socda kitaabka la yiraahdo Abi Shujaaca ayaa ka socda oo asagana dad badan ay ka faa'iideystaan oo rag iyo dumarba leh. waxaa ku xiga galabkii bacda al-casr oo kale tobanada meelaha markay tahay kitaab ayagana ka socda oo ah cilmi caqiidada ama usuul diinka loo yaqaano oo hadda ardaydana ay ka mid yihiin dadka marsada. waxaa ku sii xigo kale bacda al-maghrib ardooyinka laftirkooda qayb ka mid ah oo safiinaha ayagana loo akhriyo. sida ay kitaabtu u kala duwan yihiin xilli walba waxay leeyihiin dad u gaar ah bay leeyihiin, dad waxaba wadaagsada oo wax oo dhan wax ka qaatana way jiraanin. al-cisha 2 saac iyo bar meelahaas asna kitaab baa masjidka ka socda, kitaabka la yiraahdo minhaajka ayaa ka socda oo ayagana rag ay marsadaan arda oo xir ah. intaasi waxa weeyaan waa casharada ka socda masaajidka al-Hidaayo. cidii ogeyna way ka faa'iideysan jirtay, cidii aan ogeyna inay hadda ka soo faa'iideysato ayaan rajaynaynaa. haddii aan qodobka ka gudbo qodobka labaad waxa weeyaan ardaydan maanta aanu joogno xafladoodii aan maamuusayno. ardaydaasi waxa weeye tirsigooda 22 arday weeye, 10 gabdhood iyo 12 wiil weeye. ardaydaani waa ardada galabkii kitaabta marsada bacda al-casr, waxay marsadaan kitaabta caqiidada. waxaa u soo dhamaaday dhowr kitaab. kitaabka koowaad kitaabka loo yaqaan caqiidatul awaamka ayaa u soo dhamaaday oo runtii wax badan oo fawaa'ida ay ka heleen dadkoo dhanna ay ay ku garanayaan dhexdiisa. waxaa kaloo ku xigay kitaabka la yiraahdo caqiidatu ahli al-islaam oo asaguna kitaab muhiim ah. kitaabka saddexaad oo ardadu qaarkood ay marsadeen oo aysan wada dhamaysan waxa weeyaan kitaabka loo yaqaan caqiidatu dahawiyaha weeye. saddexda kitaab ayay ardadaas soo barteen. waa kitaab aad iyo aad muhiim u ah oo asaasu diin ah oo qof kaste oo muslima ay waajib ku tahay inuu barto. leanna maxaa yeelay awalu ma yajibu cala al-muslim waxa weeyaan macrifatullaahi subxaanahu wa tacaala. qofka marka koowaad waxaa ku waajibaya ilaahay barashadiisa. waxaa lagu bartaana cilmi caqiidada la yiraahdo weeye. ardaydaani sidaas ay ahayd xaaladoodu. runtii waqti ayay bixiyeen aad u cajiib ah oo aad u qaali ah. waxaa garab taagnaa oo u kaalmeynaya ardadaasi hooyooyinkood iyo aabbayaashood baa garabkooda ahaa ilaa ay ka soo gaareen halkan. haddana waxaan sii rajaynaynaa inay sii socoto oo hor u socodkaasi uu sii daa'imo ayaanu rajaynaynaa. marka insha Allah taala waxaan leeyahay ardada iyo waalidka iyo dhammaan culimada iyo dadka ka soo qayb galay xafladan boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin. wax yar haddii ummad meel isugu timaado muhiimiyadda koowaad waa in ay siiyaan ilaahay ka cabsiga ilaahayna is xasuusiyaan
waxaan isku dardaarmaynaa marka wax isku dardaarmaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dardaaranka uu u dardaarmay ummadihii awaliintii iyo aakhiriintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayyuhalladhiina aamanu taqullaha haqqa tuqaatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimuun in Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsida laga cabsado madaar kullu saada weeye oo liibaanta oo dhan iyada ay ku xiran tahay qofka meel Allah la meeshu labada daarood ba saadadu waxay ku xiran tahay Ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala Ilaahay waxay cabsido waxay dawo u tahay mushkilaadka iyo xawaajita taagan qofka bini'aadanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa ayaa muhiim inuu u carro oo xal iyo fara u ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja qofka Ilaahay ka cabsado Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yeelayaa makhraj iyo boos uu ciriirgaas uga baxo xagga bini'aadanka tafaadulka iyo kala sareynta waxay jirtaa xagga Ilaahay cabsidiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna akramakum indallahi atqaakum waxa in ku karaama badan oo in ku sareeyo Ilaahay agtiisa kan in ku cabsida badan xagga Ilaahay aqbalida acmaasha la aqbalo waxay jirtaa cabsida Ilaahay ayay jirtaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inma yataqabbalu Allahu minal muttaqiin Ilaahay wuxuu wax ka aqbala acmaasha ka aqbala ko Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsaday cabsidu marka waa labada daaroodba falaax iyo guul ayay u tahay waxa kamida waxyaalaha ay cabsidu ay xaliso Ilaahay laga cabsado umuurta waa ay sakhirtaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu umuurtiisa ka dhigaa qofka hadduu ka cabsado yusr iyo fadid ayaa Allah ka dhigaa saasay marka cabsida waxay noo leedahay ahmiyad qofka labadiisa daaroodba ay ku tacalluqda ku xiran tahay marka waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu ka cabsano ardada quraanka kitaabta soo dhamaysatay oo kitaabta islaamka asaasiga ah soo qaadatay waxaan leenahay hambaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala guul iyo liibaana in siiyo kuwii sii wada oo duruusta xalaqaadka qofka bini'aadanka waxay ka aqoonta rasmiga ah oo lagu xisaabtamo xalaqaadka ayaa kowga ah qofku hadii uu aqoontiisa oo dhan uu xalaqaad ku soo qaato aqoontiisa barbaarintiisa wax weyn ay ka goynaysaa faa'iideystaan si guud iyo si gaar ah binaga faa'iideystaan waxa mahad gaar iska leh ardayda maanta halka xafladda loogu qabtay oo kitaabtii waxa kan la yiraahdo loo akhriyo halkaan laga sheegay dadkii culimada u akhrinay ka sheegeen runtii waxay leeyihiin mahad gaar iyo maamusitaan gaar ay leeyihiin waxaanu ku boorinaynaa culumta la sheego halkaan inaad marsateen la sheegay iyo kuwa leeyniin marin doonaba inay yihiin kuwa adduunkiina iyo aakhiradiinaba waxa kan la yiraahdo aad ku anfacaysaan weeye kitaabta aqeedada markii aqeedada laga hadlayo kitaabta fiqiga cibaadaadka wuxuu kaga ansaxayo iyo culumtii sharciga ah dhamaanteed bay ku dhan yihiin baa meeshaan la keenay baa la sheegay say u badan yihiin dhammaan waa in laga faa'iideystaa oo awooddaasi saadhaaneen aqeedada qofku waa meesha asaaska ee qofku uu ka toosnaado oo waxa kaliya ugu muhiimsan uu ka toosnaado weeye al-aqeeda hiya aqeedada saxda ah oo qofku u la imaanayo al-ilm al-jazim alladhi la yatadarraqu ilayhi shakkun wa ilmiga jazimka ee go'an waxa kan la yiraahdo alladhi la yatadarraqu ilayhi shakkun lada mu'taqadihi inda mu'taqadihi wa ilmiga go'an ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku uu ku baranayo aqeedada saxda ah oo marna aan ka guurguureyn marna aan ka tagaynin ilmiga waa ilmigaas weeye culumta kale oo fiqiga oo halkaan la sheegayna waa ilmiga aan sheegayno oo saacad kasta baahida loo qabo weeye waxaanu leenahay laga faa'iideysto culumtaas waxaan dhammaan ugu baaqaynaa in culumta dadka laga faa'iideysto oo looga faa'iideysto dhalinyarada iyo daayirta looga faa'iideeyo yar iyo weynba laga faa'iideysto sidoo kale waa inaan ahmiyad gaar ah iyo fiiro gaar ah waa inaanu siinaa
علومتي علمك الشريعة وإن فرق راسنا runtii waxa kala yiraahdo waa taanu sheegnay qofka akhlaaqdiisu aan cilmiga iyo aqoonta qofka uu leeyahay qofka aan ka dhaxlin akhlaaq wanaagsan haduu qofku uu ka dhaxlin aqoontiisa cilmigiisana ilaahay waxa kale uu ku xireynin runtii qofkaas culumta wax badan u tarimayso maadiga iyo iskuulada iyo culumtan ku dhisan falsafada iyo tajribada ku dhisan waxa inaan awood saarno waxa ka fiican oo ka fadli badan oo ka wanaagsan oo qofku shakhsi ahaantiisa uu ku dhismi karaa inaanu waxa kan iyo awoodda aan saarno culumta ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu xiraysa iyo culumta qofku markii uu barto qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisu ay hagaagayso midaas ayaa qofka muslimka waxa la rabaa awoodda inuu saaro midaan kale ee tajribada ku dhisan qofku biri ka maalin wixii waxa kan yiraahdo uu bartay inuu shaqo ka helo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u ballan qaaday risqiga uu ku ceyrsado taas waxa ka muhiimsan inuu qofku awoodda saaro علومta shariicada inuu awood saaro ayaa waxa kale yiraahdo ka muhiimsan waxaan u sheegaynaa waalidiinta iyo dhammaan dadkii waxa kale yiraahdo daayartaan quruxda badan oo loo barbaariyay culumta shariicada lagu barbaariyay runtii inaad nasiib gaar ah leedihiin caruurtiini waxay baratay maanta aqoon akhlaaqdooda ku wanaagsanaan kadho waxay barteen cilmi ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirmaya qofkuna markuu dunida la keenay waxa la rabaa oo laga rabaa waxa weeye qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku xirmo akhlaaqdiisuna ay wanaagsanaato ayaa waxa kan yiraahdo ku xirma weyn waxa inuu tusaysa runtii markii la fiiriyo wiilasha hadda meeshan fadhiya oo ayaga jiilkooda oo kala ah markii la fiiriyo hal arday oo food leh kuma jiro hal arday oo qiyamkiisa suluugiisa habdhaqankiisu uu qaloocan yahayna kama muuqdo waxa aan qiyaasayna waxa ay ku tooseen in ay tahay waxa kala yiraahdo culumtii cilmiga oo kala ay barteen gabdhahuna sidaas oo kala weeye waa maxay qofku aqoonta rasmiga wuxuu ku yeelan karaa adduunyo aakhiraba waxa ka faa'iideysan karaa waa culumta shariicada waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal aan fiiro gaala u yeerana cilmigeena shariicada waa cilmiga ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu adoonsaday waa cilmiga laga la xisaabtamayo waa cilmiga aad u baahan tahay sida neefta ugu baahan tahay kala ugu baahan tahay marka waxaan ku soo gabagabaynayaa in awoodeena iyo hamigeennaba ay noqoto inaanu daayirteena aan waxa kale barno culumta shariicada annaguna ka faa'iideysano culumta shariicada wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الرحمن بشير الشيخ سعيد وحانا برتا كتب عقيدة وانا كبرتا مسجد الهداية وحانا كسو تيني قيب كميدا وحان برتاي نبي عبورتي صلى الله عليه وسلم النبي عبورتي سوحة أهايان تضبا بأهايان صدح ويل لأفر قبلود أفرت قبلود وحالة ديه تري فاطمة يا زينب يا رقية يا أم الكلثوم صدح ويل وقاسم يا عبد الله يا إبراهيم ما هي أنت كلا واحد الشيء خديجة إبراهيم مارية القبطية والشيء وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهموا قاسم وعبد الله وهو طيب وظاهر بالدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم الكلثوم زكت رضية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي مسعود هذا عبد العزيز
ومرصد كتب عقيدة كنا مرصد مسجد الهداية وحا كسو جديا وحا برتي وحا كمدا شيء لا تكني بواجب تعيين وحفظ وقلق غنقارك ليس وعن تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنم وماذا إدريس نوح مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون والموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الداقية عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. أنا أقبل مقعي مصعب هذا عبد العزيز وركت كتبت عقيدة أو قلت مسجد الهداية وحان قصة جدينيا وحكمدا وحان برتا وحكمدا وكساب سنتوانك ملك لحدي واجبك ليسوان والملك الذي بلا بموم لا أكل لا شربا ولا نوم تفصيل أجر منه جبريل ميكال وإسرافيل وعزرائيل منكر نكير ولطيف وكذا عتيد مالك ورضوان احتدى وعن شيء طبعا كملك شغل قبطان جبريل وحي قبطان شغل وحيبة ميكال وحي قبطان شغل روكا إسرافيل وحي قبطان شغل نفحنتا عزرائيل وحي قبطان شغل بونكا وفنتا منكر يا نكير وحي قبطان شغل قبرقا رقيب يا عتيد وحي قبطان شغل وحي سارين لولا قربون مالك وحي قبطان شغل فوح فرا نارتا وحي جمال رضوان وحي فرتا فرا جنضا. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. magacaygu waa Faadimo Axmed Cali waxaan ahay ardayd marsata kitaabada caqiidada kuna marsata Masjidul Hidaaya waxaan akhrinayaa kitaabka caqiidada waxyaalaha bartay wax kamid ah waxaan akhrinayaa siirada nabiga. Bismillaah. nabiga wuxuu ku dhashay Makkatul Amiina wuxuu ku geeriyooday Madiina. nabiga waxaa nuujisay Xaliimatu Sacdiya. nabiga waa ina Cabdullaahi Cabdi Mudallim. nabigu markii waxayga lagu soo dajinayay wuxuu jiray 40 sano. nabiga markuu geeriyoonayay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku geeriyooday Madiina. markuu geeriyoonay nabigu wuxuu jiray 63 sano. bismillaah. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد مضلم وهاشم عبد مناف ينتصب وأمه آمينة السهرية مرضعة حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله. أنا معايا يا حارس اسمه سليمان أو برت كتب عقيدة أو برت مسجد الهداية حقنا وحنا كسجدني أو برت waxaan bartay wax kamid ah ilaahay uu soo dejiyay 104 kitaab 100 koo yar 4 waaweyn waxaan akhrinayaa bidadkoodii arba'atu min kutubin tafsiluha tawratu musa bil huda tanziluha zaburu dauda wa injilun ala isa wa furqanun ala khairil mala وصحف
الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب وبالله التوفيق. أنا مقعد يا محمد سيد أحمد وبرت كتبت عقيدة كنا برت مسجد الهداية وعن حقا كسر شيدنيا وعن برتي وحكم ذا. بسم الله الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإنا أنه نعلم وحن أغناي ونعتقد عن عقيدة سناي ونؤمن عن رمي سناي ونوقن عن يقين سناي ونشهد عن قرنا لا إله إلا حق وعبد نسجر إلا الله إله موجانه وحده كريس لا شريك وعلى وذاك مجره له إله ويه عظيم وين ملك بغر ويه كبير وين لا رب مجد سواه وصاك الصواري ولا معبود من العبد مجه إلا إياه وصاك مويه قديم مثل ويه أسليم سير دائما من دائم أهوي أبدين وليس لا ابتداء واحد لا شان وصل لأوليتي ورنتيزا ولا انتهاء واحد ما شان وصل لآخريتي دمينتيزا أحد كلوي سمد بايا لا قصده لم يلد لبدل ولم يولد حنا مصدل ولم يكن مصنع له إلهي فهو عورنا أحد حناه لا شبيه وعوق مصنع له إلهي ولا نظير وعلى اسمه ليس معا كمثلي مثل كسوق الشيء شينه هو إلهي أسمع عليه وحمغلوي البصير أركاها وأنه إلهي تعالى سري مقدس منك ظهيرا وعن الزمان علم يوم مكان باص وعن مشابهات الأكوان ينشب ويعباها هانية ولا تفيد مقض به إلهي الجهاد كوينك ولا تعتريه كما يماضان الحاسات وحيا وادعاه مستوي متكسنا على العرش كتاب الذي قال سيدو جريه بالمعنى معنوية الذي معناه سيراد وضوري استواء سناشو يليق وعتمه بعيس سلالي شرفت وينانتذا وعلوم مجي سرين شرفتذا وكبياء وينانتذا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ومقعي بيه محمد عبد الكافي أحمد halkan waxaan ka soo jeedinayaa caqiidatu ahli islaam. Bismillahir rahmanir rahim. وأن القرآن العظيم قرآنك كريم كأوين كلامه إلهي كلام كسيوية كلام كاس القديم الرئي المنزل الوسود على نبي دوشيس عليه دوشيس والسلام عليه دوشيس وأنه إلهي سبحانه نسألنا تعالى سري الخالق ومتك أبو ري لكل شيء وكله وأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء والمتصرف متك قد يوي فيه شيء كيف سيشاء الدنيا ليس معه له اللي في ملكه سمنا سواء متك وضعي ولا مدافع يمتك دفاع يقضي وصيا ما يشاء ضد دنيا ويمنع إلهي وديدا من يشاء ضد دونه ويغفر إلهي ودافع لمن يشاء ضد دونه ويعذب إلهي عذابا من يشاء ضد دونه لا يسأل المودي عما شيء يفعله السمانية وهم يسألون كل ويدين يويه. السلام عليكم. تردارمية هنا إنه وحبرنا أنا كهذا أفكار والدك عيال كان لي أدي أدو حب مهد علينا معلمين تردد وقت جلسي أصوص علي إلهي وحلنا بيسان حسنات كأني سارة أرددنا وحوي وحلي من ساد علما ولم يزد فيه هدى لم يزد من الله إلا بعدا قفك هدي علم أسياده وعلم قاس أوبرتي وسن أسياد هنون يا لك عبسي إلهي سبحانه وتعالى فكان شوح عن هيك مسياد سده مرك أرضي وحلنا علم قابرتين أحاديث النبي قرآن كتفسير كيس عقائدك أنت وأنا كعمل فشان إن شاء الله هدي إلهي يدمه وحوي سبب وحل وجرا آخر سبب إنه يسكسبنا فتنة وأدوكته إنه دجان كأنشوفنا لأن يرد بأدي ذي سدا أيتهاي وحل رواينا كسرعتان وإنكم وقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي وحوي سدا وحل إني صبر سدا قلبت أقول بدنتهن
inaad mar walba daa'intaan baa la rabaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka waalidka iyo macallimiinta soo garab istaagay ayaga aad baa ugu mahadcelinayaa insha allah waxaan leeyahay sidaas iyo waan ka sii dadaalo weeye aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu